السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا داود يا الوركي تلفزيون كبرشة تي في أو دكاي من يستوديو سمجال ده هرجيسا قضى بضا وركا قدومي كحيان كبرلمان ككينيا يشير قدوم كقولها وكيلة ده سوماليلاند أيام ما أنت كلنا الباب بدو يحريه إنه كل حمري حرمتها قولها وكيلة ده سوماليلاند gudida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland waxa maanta hortagay oo faahfaahin ka siiyay waxqabadkooda dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa. wafdi ka socda hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa booqday cusbitaalka caalamiga ah ee Fastulaha ee magaalada Boorama. dalka Itoobiya waxa lagu dilay 5 dalxiisayaal kam ajaanib ah oo dalkaasi dalxiis ku tagay. Taawadayaal intaas waa qodobadii warka imika yahaatana warkii oo faahfaahsan. albaabada wuxuuna ayaa maanta xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland ku dhexmaray shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin oo booqasho maalintii shalay wadanka ku yimi. kulankan oo labada dhinac ay kaga wada hadleen xiriirka u dhaxeeya baarlamaanada wadamada Soomaaliland iyo Kenya ayaa waxa markii kulankaasi u dhamaaday saxaafadda faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. mudane Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sheegay in gudoomiyaha wadanka Kenya ay ka wada hadleen xaaladda mandaqada Geeska Afrika iyo taguud ee Soomaaliland. gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan albaabadu u xidhnaayeen oo dhexmaray shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalka Kenya Faarax Macalin oo isagu booqasho ku jooga Soomaaliland. gudoomiyaha golaha wakiilada oo markii kulankaasi dhamaaday saxaafadda ugu waramayay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka ee dalka Kenya mudane Faarax Macalin. mudane Ciro waxa uu sheegay in waxyaabihii ay ka wada hadlayeen ay kamid ahaayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya baarlamaanka Soomaaliland iyo ka Kenya iyo sidii loo yeelan lahaa iskaashi cusub oo wada shaqeyneed. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin buuxda ka bixiyo in ay ka wada hadleen gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland waxa uu maanta socdaal ama kormeer ugu kulgalayo xaaladda saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa uu ku tagay saylada xoolaha halkaas oo uu kulamo kula soo yeeshay dadka wax ka iibsanayay saylada xoolaha iyo dadka xoolaha keeneba. warkaasi waxa inoo haya wariyahayaga Cabdiraxmaan Istubatore oo la socday wafdiga agaasimaha guud ee booqanayay saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Cagaweyne ayaa maanta kormeer ku soo maray saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa. agaasimaha guud ayaa waxa uu xoogaal u noqonayay hawlaha kala duwan ee ka socda saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa. agaasimaha guud ayaa xog wareystay dhammaan dadweynaha ka shaqeeya saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa isagoo oo dhageystay baahiyaha kala duwan ee ay qabaan. waxaana uu agaasimuhu ballan qaaday in sanadka 2012 ee cusub aan ku jirno ay hawlgal ballaaran ka fulin doonaan saylada magaalada Hargeysa iyagoo u dhisi doona buu yiri dhismayaal hadhadh ah oo ay ku nasan doonaan dadka ka shaqeeya saylada iyo xoolaha la keenaba. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Cagaweyne waxa kale uu kormeer ku soo maray deerka weyn ee loo sameeyay saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa isagoo oo dadweynaha u sheegay in haddii aan deerkaasi loo sameyn lahayn ay ku soo durki lahaayeen dadyoga kala duwan ee u dhow. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamuud Axmed Cagaweyne waxa kale oo uu kormeer ku maray xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ay ku leedahay saylada xoolaha isagoo waqtigaasi kormeerka uu ku jiray ku arkay kooxaha dhaqaatiirta oo hawlgallo caafimaad ka fulinayay saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa waasi oo buufin
ilaalinayay cayayaanka kala duwan ee xoolaha cuna. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Cagaweyne waxa kaloo uu ka waramay hawlaha kala duwan ee u qorshaysan wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ee ay sanadkan 2012 ay ka qaban doonaan sayladda. agaasimaha guud oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri sida tan: maanta waxaynu joognaa sayladii xoolaha ee Hargeysa. sababtiiba wasaaradda xanaanada xoolaha waxay u qaabilsan tahay dawladda ilaalinta iyo caafimaadinta iyo horumarinta xoolaha oo ah laf-dhabarta dhaqaale ee wadankan. 70% inka badan dhaqaalaha dalku wuxuu ku xidhan yahay xoolaha. wasaaradda xanaanada xoolaha waxay sameynaysaa sayladda waxay ka sameysay soo arkaysaanba deer bay ku wareejisay. waxay kale sameysay xarad. waxay kale sameynaysaa inay biyihi xoolka cabiya ay sameyso. waxa kale aan doonayna u kala qaybino sariibada qaybta daabaxa oo geela iyo ariga iyo loodaba leh iyo qaybta maxay kale ee xoolaha la dhoofiyo. waxa kale aan iskeenaynaa oo imka insha Allah taala aan sanadka cusub bilaabi doonaa inaanu keeno dhakhaatiirtii oo xoolaha halkan dhakhaatiirtii iyo dawadii keeno oo neefkii buka la eego, neefka dhalaya la eego, neefka caafimaadka qaba la eego. urur siyaasadeedka badbaado oo kamid ah urur siyaasadeedda laga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee isu diiwaan galiyay inay ka qayb galaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa kulan ballaaran ugu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. culimada diinta magaaladaasi ku dhaqan mas'uuliyiintan urur siyaasadeedka badbaado ayaa culimadan uga waramay barnaamijka ururkooda badbaado sida uu ku soo waramay wariyahayaga magaalada Burco Maxamed Ibrahim British oo warbixintan nooga soo diray halkaasi. urur siyaasadeedka badbaado oo ka mid ah 15 urur siyaasadeed dhawaan la siiyay liisanka sharcinimo ee ururada dalkan Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa munaasabad ballaaran ku qabtay hotel Barwaaqo ee gudaha magaalada Burco. munaasabadan oo ahayd munaasabad casho sharaf oo urur siyaasadeedka badbaado u sameeyay dhammaanba culimada diinta gobolka Togdheer, aqoon-yahano, salaadiin, dhalinyaro iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa ugu horreynba munaasabadaasi waxa lagu soo bandhigay ajandaha ururkani badbaado iyo waliba siyaabihii ka dambeeyay fikirka aasaaska ururkani badbaado. munaasabadan ayaa ahayd munaasabad si weyn u kulmisay culimada diinta gobolka Togdheer. munaasabadan ayaa ugu horreynba waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka badbaado Dr. Axmed Aadan Bulxan, wuxuuna gudoomiye ku-xigeenka sharaxaad ka bixiyay ujeedada safarkoodana ay ku yimaadeen magaalada Burco iyo waliba xogo ku saabsan urur siyaasadeedka badbaado. wuxuuna sheegay Dr. Axmed inay tahay markii ugu horeysay urur siyaasadeedkan badbaado uu soo gaadhay gudaha magaalada Burco, isla markaasna uu kula noocan oo kala la qaataan aqoon-yahanada iyo culimada diinta gobolka Togdheer. gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka badbaado Dr. Axmed Aadan Bulxan ayaa sharaxaad ka bixiyay manhajka siyaasadeed ee urur siyaasadeedka badbaado uu rajeynayay inuu mustaqbalka ku hogaamiyo siyaasadda dalkan Soomaaliland. waxaan u ballan qaadaynaa inaanu dib habeyn rasmi ku sameeyno ilaha dhaqaalaha dalka aan ku sameeyno. waxaan ballan qaadaynaa sidoo kaleeto in aanu waxbarashada iyo aqoonta aanu isbedel ku sameeyno dalka. waxaanu ballan qaadaynaa sidoo kale inaanu dhaqanka bulshada isla waxbadal ku sameeyno. Sheekh Cali Warsame iyo Sheekh Cali Faarax oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay si weyn culimo ahaan u soo dhaweynayaan urur siyaasadeedka badbaado oo ay sheegeen inuu heliyo hoogba la garab taagan yahay diinta Islaamka. waxayna Sheekh Cali Warsame iyo Sheekh Faysal Cali Faarax ay sheegeen inay madaxda sare urur siyaasadeedka badbaado ay kula dardaarmayaan inay halkaasi ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan sidii ay ugu hiilin lahaayeen diinta Islaamka. Sheekh Maxamed Cali Geed oo isaguna ka mid ah asaasayaasha urur siyaasadeedka badbaado oo isna munaasabadan ballaaran ee casho sharafka loogu sameynayay culimada diinta gobolka Togdheer ayaa sheegay in urur siyaasadeedka badbaado uu mar walba u taagan yahay sidii uu garab istaagi lahaa diinta Islaamka. wuxuuna Sheekh Maxamed Cali Geed uu sheegay in haddii urur siyaasadeedka badbaado ku guuleysto talada dalkan Soomaaliland inuu wax badan ka qaban doono dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka. Suldaan Maxamuud Guuleed Miro oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay salaadiin ahaan ay si weyn u soo dhaweynayaan urur siyaasadeedkan badbaado. wuxuuna Suldaan Maxamuud Guuleed Miro uu baaq nabadeed u diray colaadda ka taagan deegaanka Buuhoodle isagoo ugu baaqay labada dhinac bayna ka qayb qaataan sidii wada hadal loogu dhameyn lahaa shaqaaqada ka taagan deegaanka Buuhoodle.
ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo xidhay gudoomiyaha kumeel gaadhka urur-siyaasadeedka badbaado Axmed Cali Shire wuxuuna gudoomiyaha urur-siyaasadeedka badbaado Axmed Cali Shire oo munaasabadaasi ka soo jeediyay khudbad aad u dheer oo kaga warbixinaya manhajka siyaasadeed ee urur-siyaasadeedka badbaado iyo waliba baahida keentay in ururkani lagu dhawaaqo gudoomiyaha urur-siyaasadeedka badbaado Axmed Cali Shire uu sheegay in aanu urur-siyaasadeedka badbaado aanu noqonaynin xisbi mucaarada balse waxa uu sheegay in urur-siyaasadeedka badbaado uu noqonayo urur ama xisbi wax toosiya si kastaba haatee munaasabadan ballaaran ee habeenkii xalay ahaa ka dhacday hotel barwaaqo ee magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco waxayd munaasabad ay si weyn uga soo qayb galeen culimada diinta gobolka Togdheer aqoon-yahano salaadiin dhalinyaro iyo waxgaradka gobolka Togdheer ay soo qabanqaabiyeen madaxda sare urur-siyaasadeedka badbaado ayaa noqonaysa munaasabadii abdi ku ballaarnayd ee ka dhacday gudaha magaalada Burco Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television madaxa banaan ee Bulsha TV Burco guddiga joogtada golaha guurtida ee Soomaaliland waxay maanta xog waran la yeesheen mas'uuliyiinta u sareysa dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo horkacay maayar ku-xigeenka caasimadda mudane Maxamed Cabdilaahi Uurcadde maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Maxamed Cabdilaahi Uurcadde iyo xubno ka mid ah maamulka dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa maanta hortagay guddiga joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland maayar ku-xigeenka caasimadda oo kulankaasi ka hadlayay ay la yeesheen guddiga joogtada ee golaha guurtida ayaa warbixin badan oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay taasoo la xidhiidha wax qabadka dawladda hoose iyo qorshayaasha hor yaala mudane Uurcadde oo halkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dawladda hoose muddadii ay xilka haysay ay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo dhinacyada horumarinta adeegyada bulshada ee caasimadda Hargeysa mudane Uurcadde waxa uu sheegay in dawladda hoose ay ku tallaabsatay horumar la taaban karo oo ay ka mid tahay wadooyin badan oo ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay in ay xilligan qorsheynayaan sidii ay caasimadda Hargeysa u nidaamin lahaayeen isla markaana ay u hagaajin lahaayeen adeegyadeeda dhinacyada caafimaadka iyo wadooyinkaba kulankan oo ahaa mid ballaaran oo mudanayaasha ama ku jira guddiga joogtada ee golaha guurtiduna ay su'aalo ku weydiinayeen maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa waxa kale oo uu sheegay in dhawaan ay hirgelin doonaan isla markaana ay banayn doonaan wadooyinka caasimadda Hargeysa oo uu sheegay in dad badan ay bartamaha wadooyinka degan yihiin isla markaana ay meherada ka sameysteen mudane Uurcadde waxa uu sheegay in ay iyaga oo kaashanaya guddiga heer qaran ee bilicda caasimadda Hargeysa ee madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan oo soo magacaabay ay dhawaan qorshahan bilicda caasimadda ay hirgelin doonaan waxaan ugu baaqay dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka caasimadda Hargeysa in sida ugu degdeg badan ay uga guuraan goobahaasi inta aan ciidamada bilayska ee dawladda hoose olole ku qaadin hawlwadeena ka socda hay'adda UNFPA ee qaramada midoobay ayaa maanta booqday cusbitaalka Fastulaha ee magaalada Boorama halkaas oo ay u kurgaleen xaaladda cusbitaalkaasi ku sugan yahay wariyaha magaalada Boorama nooga soo warmay Cabdifataax Axmed sida uu ku soo waramayo waxa uu sheegay in waftigaasi ay u kurgaleen xaaladda cusbitaalka uu ku sugan yahay isbitaalka caalamiga ah ee lagu daaweeyo haweenka qaba xanuunka fistulaha ama isku furanka ee gudaha magaalada Boorama ku yaala maanta waxaa kormeer howleed ku yimid howlwadeeno ka socda hay'adda caalamiga ah UNFPA ee isbitaalkaasi ka taakulaysa dhinaca dhaqaalaha howlwadeenadan waxaa ku soo dhaweeyay isbitaalkaasi madaxa isbitaalka fistulaha ee magaalada Boorama Dr. Ibrahim Saciid Qaws waxauna howlwadeenadaasi ka socda hay'adda UNFPA soo mariyay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalkaasi waxauna warbixin ka siiyay isbitaalkaasi fistulaha ama cudurka isku furanka ee haweenka ku dhaca lagu daaweeyo ee caalamiga ah ee ku yaala gudaha magaalada Boorama isbitaalka fistulada hay'adda UNFPA oo runtii ah hay'adaha aadka nooga caawiya xagga bukaanada keenistooda tababarada aad nooga caawiya ayaa maanta waxaan soo booqday madaxdoodiisa ay u arkaan halkaan ku shaqeyno iyo sidaan u shaqeyno marka runtiina waa dad aan aad u soo dhaweynayno uguna mahad celinayno aan leenahayna intii hore aad noogu qabateenna waad ku mahadsantihiin inta dambana ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad noo sii wadaan salaamu calaykum isbitaalkan fistulaha ee magaalada Boorama waxaa loogu yimaadaa deegaanada ku yaala mandiqadan geeska Afrika ee loogu hadlo luqadda afka Soomaaliga
waxaana wax badan ka faa'iidaystay haween fara badan oo muddo badan la xanuunsanayay xanuunkan fistulaha ama isku furanka ee haweenka ku dhaca. dhanka kale odayaal iyo waxgarad deegaano hoostaga degmada Baki ee gobolkan Awdal ayaa maanta waxay shir jaraa'id ku qabteen gudaha magaalada Boorama waxayna shirkoodan jaraa'id ku faahfaahiyeen abaaro xoogan oo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaasi ka taagnaa waxayna ku baaqeen in loo soo gargaaro dadka deegaanadaasi ku dhaqan waxaana hadaladooda ka mid ahaa laga bilaabo gobolka ilaa Xalimaale la gaarsiiyay inta u dhaxaysa dhibaatooyin aad u badan ay haysato duuyadii ay liidato waxa cuntana ay weyday dadkiina uu ku daba jiro waxaan aad iyo aad dadka deeqbixiyayaasha iyo inta samafalka maaragtay dhibaatadu damqayso aan ka codsanaynaa in la nala soo gaadho gurmad degdeg ah. waxaan halkan ka sheegayaa iyada oo dadka Baki Dagacaso Cadaad ilaa Weeraar ilaa Abase dadka intaa ku nool ay dad yihiin abaaraha wadanka 3 sanadood nagu ka dhacay dad ay xaalufiyeen dad wixii duuya ahaa maratay wixii dad ahaana wax dhulka u kala kacay wax ku daba jiray yahay. Cabdifataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama. daawadayaal halkaad warkaasi kala socotaan wali waa telefishinka Bulsho xaruntiisa magaalada Hargeysa. shan dalxiisayaal oo dalxiis ku tagay wadanka Itoobiya ayaa maalintii shalay halkaasi lagu khaarajiyay. warbixinta dilkan loo geystay dalxiisayaashan waxa isagoo faahfaahsan inoo haya wariye Najax Aadan Cunaaye. wararka ka imanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dad dalxiisayaal ah oo kala dhashay wadamada Jarmalka iyo Australia lagu dilay magaalo xuduudeeda ay degto Cafarto halka mid kalena lagu dhaawacay. dadka la dilay oo ahaa dalxiisayaal ayaa waxa la sheegaya in aan ilaa hadda la ogeyn sababta dilkooda ka dambeysay iyo cidda dishay toona balse waxay wararku intaasi ku darayaan in qaar kamid ah dalxiisayaashaasi iyagana la afduubtay. dawladda Eritrea ayaa iyadu iska fogeysay in ay ka dambeyso dilka dhaawaca iyo afduubka loo geystay dalxiisayaasha u soo tamashlaha tagay dalka Itoobiya. geesta kale dawladda Eritrea oo kamid ah wadamada ay beesha caalamka ku tilmaansanto fidmowdayaasha ayaa gaashaanka ku dhufatay in ay gacan siiso kooxda xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya. wararkan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay beesha caalamku ay ku celcelinaysay in ay dawladda Eritrea gacan la xaala siiso xarakada Al-Shabaab. ku taala wadanka Turkiguna waxa ay xabsi daayan ku xukuntay nin dhawaan ku dilay dalkaasi wariye ka howlgala warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. maxkamadda ku taala dalka Turkiga ayaa xabsi daayan ku xukuntay ninkii dilay saxafi Handag. xukunka ka soo baxay maxkamadda ayaa cadha iyo diidmo ay ku qaabileen qoyskii iyo qaraabadii uu ka soo jeeday Musar Handag oo ah saxafi Turkiga kaas oo 2007 lagu dilay Turkiga. maxkamadda ayaa go'aankeeda ku xukuntay xabsi daayan Mustar Yaasiin Hayal oo ah ninkii ka dambeeyay dilkan. waxaa sidoo kale kiiskan lagu hayaa 19 qof oo kale iyana shalay maxkamadda la hor keenay. qoyska saxafigan ayaa sheegay dilka loo geystay wiilkooda inuu ahaa mid mu'aamaraysan waxayna sidoo kale tilmaameen in maxkamaddu xukuntay dambiilihii balse xadkii loo baahnaa aanay gaadhsiin. hore ayahayd markii garsoorka Turkiga uu ku riday xukun 23 sanadood ah oo Jaan oo sheegay inuu ka dambeeyay dilkii saxafiga. wiilkan oo 17 jir ahaa ayaa lala beegsaday 2 xabadood ee wajiga xilligaas oo uu ka soo baxayay goobta jaraa'idkiisa taasoo ka shaqayn jirtay isku soo dhaweynta arrimaha amniga ee dalka Turkiga. ciidamada wadanka Talyaaniguna waxay xabsiga u taxaabeen kabtankii markab dhawaan ku degay halkaasi oo siday dalxiisayaal tiro badan oo qaar badan oo kamid ah ay ku geeriyoodeen shilkaasi. waxa warkaasina inoo haya Maxamuud Askar.
kabtankii markabkii dalxiiska talyaaniga oo xabsiga la dhigay garsoorka talyaaniga ayaa go'aansaday in kabtanka Francisco Schettino oo ahaa kabtankii waday markabkii koronkorida oo jimcihii la soo dhaafay ku qaraqmay xeebaha dalka talyaaniga in la sii hayo ilaa inta uu go'aan ka soo baxayo maxkamadda waxaana lagu eedeynayaa inuu geystay dilal ulkas ah isagoo iska sii daayay bay yidhaahdeen hoggaanka iyo shookaanta markabkaasi oo ay ku naf waayeen ilaa iyo hadda inta laga warhayo 11 ruux iyo dhaawaca 10 gaadhaya halka laga laayahay ragaabkii saarnaa markabkaasi 20 qof qareenka u doodaya markabka ayaa sheegaya in kabtanku aanu ka tegin markabka ilaa iyo intii uu soo badbaadinayo qofkii ugu dambeeyay waxaanu tilmaamay in badbaadinta rakaabkii saarnaa markabka kabtanku door libaax leh ka geystay kaasoo soo badbaadiyay buu yidhi kumaankum qof amba 100 qof oo saarnaa isla markaana markabku jiidhay dhagaxaan waaweyn oo ku hoos jiray badda hase yeeshee telefoon ku soo xidhiidhay kabtanku ayaa ahayd mid uu kale rakaabka ka saarnaa taas oo ay baydhaahdeen uu diiday markii badbaadiyayaashu yimaadeen inuu markabka mar labaad arko isku soo wada duuduubo shaqaalaha ku howlan gargaarka badbaadinta ayaa maanta ka soo saaraya markabkii 5 meyd ah iyadoo oo tilmaamay in laga yaabo in ay ku jiraan dad kale oo ku sii hoos jira qololka markabka kuwaas oo ay u adeegsadeen galistiisa miinooyinka yaryar daawadayaal intaasi waxa inoogu dhamaaday warkii dalka gudihiisa dibadiisaba aan idinka haynay oo aan halkan idinka soo gudbinayay anigoo Saleebaan Ibraahim Xaashiya intaan warkiisa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh